السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajeynayaa qof kasta meesha jooga iyo meel kasta uu ku sugan yahay waqtigan xaadirka inuu caafimaad qabo iyo nabad ku haysto. wax kale waan idinka yara raag 2 casho mise 3 casho aanan soo gelin. waxa dhaxamihii iyo wixii baa soo dhacay, marka wixii baa iska mashquulay iyo adduunyadii iyo orodkii iyo hargebka waa nagu raagay baryahani. waxaan joognaa dee dunia hawada isbedelayso soo ma joogno, kolba hawada isbedbedelaysa. marka season kasta markuu isbedelayaba maaragtay waxa bilaabmaya hawagedis, waxa la dhahaa hawagedis baa dadka ku dhacaya. marka intaasan iskaga yara mashquuliga raalahaada. waxaan maanta inoo wadaa dhaqamada adduunka waa cajiib. dhaqamada adduunka waa cajiib weeyaano maalinba nooc baa soo arkaysa, soo baranaysa. marka waxaan idin wadaa dhaqan Afrika gudaheeda, laakiin wadankii baanan garanayn wadanku yahay, laakiin waa Afrika gudihiisa oo ilmo yar. inaga waxaan odhan jirnay gardaadis. I don't know dee maxaa dhahda, anu gardaadis baan noqona. gardaadiska waxa weeye iyo ilmaha markuu 4 baxaan filay inay ahayd oo la odhanaya adeerkiibaa garbaha ku qabanaya oo la urdaya, something like that. mise abtigii waxba sheeko noocaasa baa jiri jirta. waa dhaqan Soomaali taasi. marka kuwan waxaan waa gardaadis oo nooc kalaa baan u malaynayaa. marka waa 3 dumar ah, af kale ku hadlayaan, laakiin waa Afrika gudaheeda. laakiin ilmo yar oo saa loo geliyo anu waan ka yara yaabay oo waxaan sidhi dan waxaan waaba too much weeyaan. bal adigu afkayga maxaan dhahdaa waxba idinka sheegi mayba, indhihiinu ku arka idinku oo maqla bal waxa meesha ka dhacaya. okay suucadkan iska xidhaya ilmihii dhamaadis sama aragtaan day hobbo taasaa loo tuuray. hooyadii waa kusoo booday. marka eeg mar labaad baan idinku celinaya. waka taasaa loo tuuray, taasaa loo sii tuuray, taasaa loo tuuray, taasaa haddana loo tuuray. acuudu billah. marka ilmaha hooyadii waa kusoo boodaysa, balse gabadh baa ka qabanaysa. hooyadii waa cajiib moogta, wataa way kusoo booday. sorry waxa kusoo dhexdhacay sawir kale. ma arkaysa sida kubadda ilmaha yara lasugu tuurtuura. adhoon ilmahaasi waa bil ma xalmay 3 bilood meelahaasu jiraa baan filay ilmahaasi. marka waa dhaqan baan u malaynayaa, ama ma garan karo waxay tahay. taas weeyaan dhaqamada cajiib weeyaan adduunyadu. ilmaha de waa waxay kolley iyagu kusoo dhaqmi jireen generation. haddaad wax ka aragteen oo wax ka maqasheen bal ila soo wadaaga xagga commentka. ma aragta anigu ma garanayo waxay uga wada anigu makan, laakiin aan maskaxeeda yar tuujiyey waxaan isdhimdaa waa macna gardaadis oo kala weeya ma filaya. okay taa markaan ka gudbo waxa rabo kale idinku soo kordhiyo. Soomaaliya bariisyadana iibsanaysaan iska ilaaliya. cuntooyinkan la iibinayo ha la iska ilaaliyo, especially Africa. bariiskan waa in la iska ilaaliyaa. iminka waxa beri horena waa la soo saaray, laakiin waxa waraaq plastica sumaarti plastica ayaa la jarjarayaa. inta la jarjaro ayaa hadhata laydin soo kuuskuusay laydinka dhigayaa bariis. bal idinku daawada, indhihiina idin macalina daawada. Plastic rice. That is why some of this rice, when you eat this rice cannot digest in your stomach. Look at this. Look at this. Lord have mercy. Look at this. Lord have. Oh God, save us. Look, they are manufacturing plastic rice. That is why some of this rice, when you eat this rice cannot digest in your stomach. Look at it. Look at it. Lord have mercy. Okay. Waa plastic.
waana hindiya wadankiina waxaan maqalay dadkii waxaa ku batay xanuuno fara badan waxaa ku fara badatay xanuunkan laydhaa kansalka calool xanuun balaayo oo dhanba dadkii ku dhacday waxaan bay cunayaan dadku war soomaaliya wadankiina inta nabad ka dhigataan cuntooyinka ku beerta dhulka dadkan saan idiin gelayaa wadankoodii nabad bay ka dhigteen intay maxaan dhahaa markaasi waxaa idiin soo sameynayaan war wadankiina wax kasta idin yaala macdan kasta ilaahay dunida dhigay ayaa idin dhex taala ciidii baa hodan idin ah hawadii baa hodan idin ah dhirtii baa hodan idin ah haddana waa ka qatantiino waa ka gaajoonaysaa bariis waa ku beeran kartaan ciidan dhulkan ilaahay ku inoogu abuuray wax kasta way ka soo baxaan wax kasta way ka soo baxaan ma la odhan karo waxba kama soo bixi karaan waayo ilaah baa dunidan wax walba ku abuuray biyaha anuu beri dhexdeeda waxaan maqlay beeraha qayba adugu dhinaca wajaale wan manin agteeda ayaa waxaa yidhi bariis war horta nimanka bacmishirkaa la iska qabto waxaa yidhi bariis baa lagu beera bariiska waa la tijaabinayay baa bal inuu dhulku ka soo baxo bariiskii waxaa yidhi markuu ka soo baxay si fiican buu ka soo baxay baa dhulka bariiskii markuu ka soo baxay waa la tijaabiyey waa la karkariyey waa la cunay wuxuu noqday perfect wali waxaa baa yidhi bismiti marka waxaa yidhi haddaba hala badiyo waxaa la yidhi niman bacamishtir ah ayaa soo booday waxay yidhaahdeen haddii bariiska wadanka laga sameeyo oo lagu beero anaga bacamishtirka cid naga iibsanaysaa ma jirto kani believe dadka saa u fikraya anaga waxa calashan waxaan plastigan wax naga iibsadaa heli mayno ee hala naga joojiyo mashruuci dhammaa siba lagu joojiyey anugu markaa ma garanay dadka dee miyaa loogu talagalay in la sumeeyo dadka miyaa loogu talagalay tolo anugu waxaa odhan lahaa shacabow dowladeedin ma maqnee idinku wixiina dhulka kala soo baxa nimca dhulka idiin taalaaye yaa ka qoriga site iimaan kalaana meel iskaga xidha ma fahanteen dhulkiina wax kala soo baxa qudaar kasta ayuu nooc hadday meeshu xitaa saxaro tahay iyo haddaanay saxaro ahayn wax walba way ka soo baxayaan wax kasta waa nin iyo dadaalkii weeyaan nin iyo dadaalkii weliba wallaahi bilaahi tallaahi soomaalida dhulba ilaahay siiye laakiinse ma arkayan waa laga indha tira soomaali indhaha dam baa laga siiyey shaydaan baana ka indha tiray wadankoodii war waxaa daawatan dokumentariyada laga soo duuba South America iyo meesha la yidhaahdo Aasiada ku taalla Nepal mise Nepal baa la yidhaha Nepal bal dadka dhulka ay ku nool yihiin iyo siday wax ugala soo baxaan bal daawada ummad buuro ku nool weeyaan buurahaasay beera kala soo baxeen oy degan yihiin oo manaafacaadkooda iyo cuntadooda iyo waxoodana kala soo baxaan inagana ilaahay wuxuuna siiya dhul filaata oo buuruhu ku yaryahay buuruhu inaguma badnaadeen nahay East Africa buuruhu wuxuu ku badan yahay dhinaca iyo baan u malaynayaa Eritrea xaggeenan kale buuruhu aada uguma badna koonfurtana hadalkeeda badaaba waa flat baynu wadanay dhulkeenu waa flat waa dhul fiican waa dhul saa isugu siman wax kasta waa laga beeri karaa sidaa marka loo qodo waa laga beeri karaa imka beri dhexdeeda sanad 2 sano ka hor waxaan daawanayay documentary laga soo duubay maxaa dhahdaa adoono shabeellada dhexe mise shabeellada hoose si adoon ma garanayo waa areada dhexe weeyaan gabadh baa waxay ka tagtay qurbahan waxay tagtay meeshii deganaayeen reerkooda beer bay ka samaysatay sheekadaas gabadha waa raadin kartaa magaceedii ma garanayo gabadhaasi waxay xoog iyo waxay lahaydba way gelisay meeshii waa koonfurta
weliba waxaan maleynaya meelaha beledweyne iyo eriyadaas baan maleynaya iyo balcad iyo meelaha eriyadaasaan filay inay tahay. gabadhaasi beer bay samaysatay, waxay ku beertay baan u maleynaya bariis, waxay ku beertay waxyaabo fara badan oo de manaafacaad leh. soomaalidana inaynu kareesina meeshii markii isku daba dhacday gabadha inta loo yimi la dilay, waa la dilay, kow baa laga siiyey gabadhii. never know wax dilay, niman baa yimi, gabadhii waa la toogtay. I have no idea beertiisa ay halkii ku dambeysay iyo waxay kolley dad bacamishtir waxaan dee plastiga soo iibinaya ayuunba kolley ka dambeeya. markaa Soomaaliya waxay ogaataan dadkan wax idin keenaya inay cadowgiina yihiin, cadow kale ma lehidin. dadkan bacamishtirka ee cuntada iyo dawooyinka idin keenaya waa cadowgiina koowaad weeyaan. saa horta ku ogaada marka ugu horeysa, ama rumaysta ama ha rumaysanina. dawooyin dhacay ayaa laborka laydin bedelaya, mase waxaa laydinka dhigaya inuu cusub yahay. ma fahanteen? maxaa dhahdaa cuntadii oo dhacday ay haddana taariikhda iyo laborka laydinka bedelaya, waxaa laydinku dhejinaya taariikh cusub. plastigaasoo miidhan baa laydin soo ururinaya, hadhowtana waa cunaysaa. hadhowta xanuun 10 kansar iyo 10 qarmuun baa qaadaysaa. waxaan la yaab qaybtaa Somaliland sanaag baa waxaan arkay meel beeraa canab baa ka baxa, canab baa ka baxayay oo tufaax baa ka baxayay. canabku wuxuu uga batay maxaa kaa galay? waa la wareystay dadkii, waxaa la yidhi maxaa u iibgeen weydeen? waxay idhaahdeen dadkii markii loo geeyey ma qaadanayaan, ma cunayaan, ma iibsanayaan. laakiin canabka banaanka laga keenay ee 10ka transport soo maray haddoodan dhexda kusoo dhacay ayaa la keenaya, la cunaya. kaasay ku kalsoon yihiin buu yidhi, ayuu ninkii yidhi. marka cid cuntaa annagaa iska cuna buu yidhi, reeraha ayaga mee areadan iska degan baa iska cuna. dadkaasaynu nahay inagu. hadhowtan markaasaynu qaylinayna odhanayna cudur baa nagu dhacay. intay halkaa soo fadhiistaan, cudur baa nagu dhacay, infection baa na galay, kanaa la galay, Soomaaliya soo yaaca, Soomaaliyana caawiya, Soomaali wixii wadankiina idin yiilay ma cunaysaan, mana aaminaysaan. dadka banaanada ku nool nafta ilaahay baa u keenteen. saa u lahaydeen qaadhaan soo gura, lacag soo bixiya, qaadhaan soo gura. wixii laydin keenay ee wadanka gudihiisa layidhi ka samaysana ma cunaysaan. marka wadanka indhaha kala qaada Soomaaliya. wadankiina waa wadan si kasta marka loo eego macdanta iyo nimcada ilaahay fadhiya waa fadhidaa ilaahay dhigay, laakiin waa laynaga indha tira. dam baa laynaga siiyey. ama Soomaaliya ha ahaato, ama Somaliland ha ahaato, ama Puntland ha ahaato, ama maxaa dhahdaa meel kastoo Soomaali degantay ha ahaato, meel alla meelkiisa qoomiyadda Soomaalidu degan tahay, nimcada wadankooda yaalla waa laga indha tira. marka cuduraduna way nagu bateen. marka waxaa samaysaan bal indhaha kala qaado. qof walba imika inuu wadankii jooga ama miyiha jooga ama magaalaha jooga telefoon buu haystaa, soo maaha? dokumentiyada la daawado. ha daawanina Soomaalida qaylinaysa buuqa siis haysata. dokumentiyada adduunyada daawada, sida dhulka wax loogala soo baxo daawada, sida macdanaha maxaa dhahday dhulka cuntooyinka loogu beerto daawada, halka ku habboon iyo meesha sida loo sameynayo daawada, sida maxaa dhahday nolosha loola soo baxo daawada. waxaynu ka naqaanaa adduunka geel la raacayo, yaari la raacayo, daasit. waxaynu adduunka uga hadhnay waxaas weeyaan. adduunkii waynu ka hadhnay saynu geel yaari daba ordinay. hadhowta markii xanuun nagu dhaco maxaa dhahdaye meel loo kacayo xanuunkiiba qof intiinan garanaysaana abuse ba dadka ku samaynaysa. intii wax garanaysay ama wax haysatayna dadkoodiiba dibintay ugu soo noqdeen abuse ku samaynayaan. marka indhaha kala qaado, wax barto, wax eega oo barta oo wadankiina wax kala soo baxa. oo qorigan baasaa sidataan iyo midadana la ordaysaan iska dhiga. imise sana mindi iyo qori la ordaysaan? anu waa yaabanahay. ilaahay wax khayr qaba ha inoo soo daayo. adduunyadan meesha Soomaali kaga tirsantay anoo garan maaye.
إلهي نبرنو إنتي نميرك قبتي وحلا يابن بل إلهي نبرنو يا إلهي نبرنو حق إلهي نعررنو إن دعيسنو وروقتي الرب قداي هلا دعي صلاة الصبح مكلا تكني هلا دعي ومدي ووريسنتها ومدي عيد إلهي ينبا ومقن يمكن وابا أباربا وابا أبارا ويانو ضدنا ودامشادا يانو دوكمنتر حونو ميل وصعودي ميل كالسعودان لقرانينين أيا لها بقولي كنتون دولار لغا بحينيا ومدنا واقاتشونيسا وأبارا هايسا دي الدنيا سلوك لنولي وحن مقلي جري مركان عيالكها maxaan dhahday adduunyadu waa laba nooc qaybna waa laga mashxaradaya waa laga maxaan aloosiya aroos baa laga tumaya durbaan waa la faraxsan yahay qaybtaa kalena waa laga barooranaya qof baa dhintay marka taasaynu ku noolahay nagu ya anuma arkin adduunyo dadkoodii ay baahan yihiin documentary ku daawanaya lacag adduunkan uma arag documentary la soo duubay oo lacag lagu daawanayana waaba ii kooba anuma arag Soomaali si xun bay u ilbaxday wallah noloshii de inaga dhibaatayna haysataa meel inoo wanaagsan ma garanayo keena ilbaxay yidhaahda waxbaan ilbaxay waxbaan haystaana sida waalan buu dhinaca waalan buu uu qabtaa aan maskaxda gelin macquulka ahayn kii kalena waa fiqiru dhulku yaala beerku dhulka ku haya wax u dhaxeeya ma haysano in u dhaxaysa ma haysano intaa u dhaxay waxa level labada gaabka intaa u dhaxaysa baynu u baahanahay wax gala meesha intaa dhaxe ma haysano halkan ka waalan ka dhibaataysanay walka weeyaan marka waxaan rajeynayaa dadkooda u naxa oo dadkooda ku abiyisin waxay haystaan inuu ilaahay noo soo diro dadkaas inuu ilaahay noo soo diro waayo aad baa loo wareysan yahay aad iyo aad baa loo wareysan khayr baan idin rajeynayaa waayo waxaan ka xanaaqsanahay waxyaabaha wax loo wadwadan ka xanaaqsanahay iyo dadkii oo dhibaataysan marka abaarayna haystee roobdoon allaha maxaan dhahdaa allah inay roobdoontii salaadii roobdoonta hala tukado oo hala duceeyo khayr baan idin rajeynayaa maca salaama